ميا ودبلة بدا وباحة الليل إطو ما أدا عيدا سنة لا بابولي اللهم باني لوروري magacayga Cabdulqaadir Diiriye Samatar nabadgelyada gobolka Nugaal waxaan ku dhiirigelinayaa inaad qaadataan codkaarka codbixinta oo aad la shaqeysaan bulshada iyo dhalinyarada si ay idinku noqoto habsami iyo horudhac bulshada muhiimada uu leeyahay waa codbixinta iyo kaarka iyo dhalashada iyo sugnaantaba waxaan rabnaa markaa in la qaato si hufan oo habsami in loo qaato laguna dhiirigeliyaan rabnaa magacayga waxaa la dhahaa macallin Cabdullaahi Cabdi Aadan rooble oo ku magac dheer macallin qabuul waxaan maanta aad iyo aad u faraxsanahay si aad iyo aad ah maanta waxaan qaatay kaarkii codbixinta kaarka oo muhiimad gaar ah ii leh aad iyo aad wuxuu igu leeyahay mustaqbalkayga iyo jiritaankayga iyo maartay يعني نورشي ودن كاركاس waa ku xiran yahay waxa keenaya in aan ku doorto codkayga si xor ah oo xalaal ah sagaalka urur midkii aan ka arko Puntland in uu yahay mid horumar gaarsiinaya xagga horumarka xagga dhaqaalaha dhinac kasta kii aan u arko Puntland inuu horumar u soo siyaadinayo kaas ayaan dooranayaa isla markaana anu waxaan diyaar u ahay in aan maalinta la gaaro hadii rabiino maalinta la gaaro hadii rabiino 25ka bisha soo socota ee codka la bixinayo inaan codka si fiican aan maartay aan u bixiyo hadii rabiino marka waxa weeyaan codkayga diyaar baan ahay inaan bixiyo Puntland waxay gaadhay horumar bay gaadhay dimuqraadiyad bay gaadhay maartay ay ku tilaabsatay mar haddaan ka gudubnay yaani qaabkii qabiilka ahaa oo aan u gudubnay xisbiyadii horumar bay Puntland gaadhay in badan bay ku soo tilaabsatay yaani horumar wanaagsan laakiin wax ka sii wanaagsan maanta meesha ay joogto waa meesha ay higsanaysay oo ay tigsanaysay waxaana mahadda iska leeyahay ka sokoobna waxa mahadda iska leh madaxweynaha ku guuleystay inuu hormariyo dimuqraadiyadda gaarsiiyo hal cod iyo hal qof maanta dalka iyo dadka gaarsiiyo Puntland bismillaah magacayga waxa la yiraahdaa waa Nabdoon Maxamuud Macallin Yuusuf waxaan iska diiwaan geliyay iskuulka Waaberi waxaan ka qaatay iskuulka isla Waaberi waan ku faraxsanahay in doorasho qof iyo cod ah ay ka dhacdo Puntland aad iyo aad baan ugu mahadsantihiin waan idin mahadcelinaynaa aad iyo aad doorashadii hore Puntland tii hore waxay ahayd waa Puntland gaar loo leeyahay bay ahayd maantana waa Puntland oo Soomaali wada leedahay weey taas ay iga dhigan tahay awalna waa dalkayga hooyo aan joogayo laakiin xagga maamulka marti baan ka ahaa maantana waan ka mid ahay maasha Allah aad baan ugu faraxsanahay idii hawshaasi dhiirigelisay oo samaysay suurtagelisay Ilaahay baa suurtageliyay idii ka shaqeysay oo suurtagelisay waan ugu mahadcelinaynaa waan ugu hambalyeynayna inay Soomaali ku midowdo aad iyo aad baan ugu mahadsantahay bismillaahir rahmaanir rahiim anigoo magacaygu yahay Aamina Axmed Maxamuud kana mid ah dadweynaha degan xaafadda Waaberi waxaan ku faraxsanahay maanta inaan qaatay kaarkayga codbixinta oo aan ka qaatay iskuulkayga aan waxbarashada ka bilaabay NU Waaberi waxa aan ku dhiirigelinayaa dadweynaha xaafadda Waaberi inay ka faa'iideystaan fursadan jaaniskan siiba dhalinyarta iyo haweenka oo aan leeyahay maanta ayaad codkiina ku ciilbixi kadhaan oo ka muuqan kadhaan golaha deegaanka hadii Ilaahay idmo ay bilaamo doonto 25 bisha hadii Ilaahay idmo marka balanteena waa kaarka la qaato iyo meesha oo laga muuqno hadii Ilaahay idmo ana ma hasantihiin